Assalaamu calaykum. Weligaa ma aragtay guryaha ay leeyihiin milyaneerada? Haddii aad aragtay waxaa su'aal gelaysa haddaba sidee loo ilaaliyaa guryahaas la yaabka leh iyo hantida dhex taalla? Milkiilayaasha guryaha waxay mar walba isku hawlaan sidii ay u adkeyn lahaayeen ilaalada gurigooda. Sidaa darteed waxaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa 5 guri ee ugu ilaalada adag adduunka. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Nambarka 5 guriga Corby ee ku yaala magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sida laga soo xigtay jariiradda Forbes, qoyska Corby waxa ay ku nool yihiin qalcad difaaceedu adag yahay oo ku taala gudaha Hollywoodka. Qaab dhismeedka gurigan waxa uu ka samaysan yahay bir, kaasoo sidoo kale la sheegay 30 mitir inuu u jiro dhulka hoostiisa. Looma baahna in laga baqo dhul gariirka daran ee mar walba ka dhaca California. Gurigan sidoo kale waxaa meel kasta ku xiran gambaleelyada ama alarmiska. Xitaa haddii qofka u soo dhaafo wax ka badan nus mayl, alarmiyaasha ayaa qaylinaya. Corbis waxa ay leedahay system amni oo dhammaystiran. Waxa uu leeyahay gurigan shaashad loogu talagalay inay soo deyso gaas aan waxyeelo lahayn ee loogu talagalay in lagu qabto dadka isku dayaya inay guriga waxyeelayaan ama wax ka xadaan. Dhismaha guriga waxa kale uu leeyahay qol argagax leh oo cabirkiisu yahay 2500 feet. Sidoo kale looma baahna furyaal lagu galo gurigan, waxaa lagu galaa software u oggolaanaya milkiilayaasha xaqa u leh inay u gudbaan albaabada. Xaqiiqdii shaki kuma jiro in qoyska Corby ay ku seexdaan si fudud habeenkii gurigooda difaaca adag. Nambarka 4 guriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ee ku yaala magaalada London. Lahaanshihiisa wax ka badan 775 qol iyo in ka badan 1500 oo albaab iyo wax ka badan 700 oo daaqadood ayaa ka dhigaysa guriga Buckingham Palace hoyga sharafta ugu weyn ku leh gudaha Ingiriiska. Gurigan balaayinka dollar ku fadhiya sidoo kale waxaa 24 saac kasta ciidan kala duwan oo ka tirsan ciidamada Ingiriiska la dhigaa gudaha iyo bannaanka guriga boqortooyada. Tan iyo markii ay soo kordheen weerarada argagixisada waxaa qolal amnigooda aad u sarreeya laga dhisay qasriga oo dhan si loo ilaaliyo qoyska boqortooyada. Mid ka mid ah qolkaasi waxa uu ka kooban yahay 18 inji oo bir ah si loo helo heerkii ugu dambeeyay ee amni. Ayadoo ay jiraan qolal badan oo loogu talagalay in lagu sugo qoyska boqortooyo amnigooda, haddana waxaa la sheegaa in Prince Philip uusan ku raacsaneyn qaar ka mid ah tallaabooyinka amniga guriga. Waxaa la sheegaa inuu diido inuu galo qolka argagax leh ee amnigiisa loogu talagalay. Nambarka 3 aqalka cad ee Mareykanka. Haddii Ingiriiska iyo caasimadiisa London ay leeyihiin Buckingham Palace, Mareykanka iyo Washington DC waxa ay leeyihiin aqalka cad oo ah guriga madaxweynaha. Waxaa ka shaqaysa 1300 oo xubnood oo ka tirsan ciidamada amniga ee Mareykanka, kuwaas oo kala fadhiya 147 difaac oo kala duwan. Aqalka cad waxa uu leeyahay tillaabooyinka ugu wanaagsan ee guriga adduunka uu ku degi karo. Kooxda shiishiyahanada ama sniperska waxay mar walba saariyiin saqafka sare, mar allaala markii madaxweynaha galo ama uu ka soo baxo aqalka. Haddii taasi aysan kula ekayn ilaalo ku filan madaxweynaha Mareykanka, sidoo kale waxaa jira xarun lagu magacaabo xarunta howlgalka degdega ee madaxweynaha oo ku taala qaybta hoose ee aqalka cad. Xaruntan ayuu adeegsan karaa madaxweynaha inuu ugu baxsado qalalaase, waxa uuna gudan karaa waajibaadkiisa shaqo welwel la'aan iyadoo uu aqalka cad uu ka socdo qalalaase. Sidoo kale xaruntan ayaa lagu fuliyaa go'aan kasta oo muhiim ah oo sidoo kale qarsoodina ah. Nambarka 2 guriga State Field ee ku yaala magaalada New York. Mid ka mid ah guryaha ugu qaalisan uguna amniga badan ayaa ku yaala magaalada New York. Gurigan oo ku fadhiya $1 bilyan ayaa waxa uu leeyahay qol casho oo dhirkiisu dhan yahay 91 feet, tiyaatar leh 164 kursi iyo geerish qaadi kara 100 gaari. Waa guri aad u weyn oo amnigiisuna aad u sarreeyo. Waxaa warshad koronto laga dhisay meel u dhow si awoodda amniga kor loogu qaado. Albaabka guriga oo ah mid aad u sarreeya ayaa sidoo kale la rakibay si loo ilaaliyo hantida qiimaha sare leh ee guriga taalla. Milkiilaha guriga ninka lagu magacaabo Ira Rinnet waxa uu ugu fadhiyaa gurigani lacag dhan $500 milyan, taasoo ka dhigaysa guriga ugu qiimaha sarreeya ee ku yaala magaalada New York. Nambarka 1 ee ugu dambeeya guriga Zombian Bunker ee ku yaala dalka Poland. Gurigan waxaa loo yaqaanaa The Zombie Bunker, kaasoo loo isticmaalay dhammaadka ugu xun dhanka gabagabaynta guryaha ama afmeeridda dhinaca guryaha.
gurigan waa mid aad u adag lana ilaaliyo. Waxa uu ka samaysan yahay gebi ahaanba shubka ugu adag, kaas oo leh jidaar wax kasta ka celinayo. Waxa uu ka samaysan yahay gurigan bir iyo shub si gaar ah loo naqshadeeyay. Shubka iyo biraha si gaarka loo naqshadeeyay ayaa loogu talagalay inay xiraan daaqadaha iyo albaabada guriga. Haween walba gurigan waxa uu kula ekaadaa guri tiknoolajiya heer sare leh, marna waxa uu kula muuqan karaa dhagax xajmi weyn leh. Naqshadayaasha guriga KWK Promise ayaa naqshadeeyay gurigan ama dhufayskan khayrul caadiga. Waxay u egtahay in naqshadayaashan ay daawadeen xalqooyinka filimka cajiibka ee lagu magacaabo The Walking Dead.